maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago hal arrin uu ilaahay jecel yahay. haddaa samaysidne walwalka iyo walbahaarka iyo murugta lagaa qaadayo, farxadna ku noolaanaysid. haddaba arrintaas maxaa waaye? goormaa la sameeyaa? sideena loo sameeyaa? yaana samayn kara? laa taxzan, ha murugoonin, wabtasim lilxayaa, u dhoola caddeey, adduunyadan way yar tahay ee ha murugoonin. as cusub la sameeyey oo ku saabsan farxadda. waxay dhaheen qofka markuu qoslo ibtisaama la sameeyo, wejigii wuxuu signal u diraa maskaxda uu u sheegaya qofkan wuu faraxsan yahay, wax dhib walal mayso. sidii ayuu qofkani ku fiican. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. wala joogtana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ha walwalin, ha walbahaarin, ha murugoonin ee farxad ku noolo. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa waaye wuxuu ilaahay jecel yahay. haddaa samaysidni ilaahay ku jeclaanayo. qofkuu ilaahay jeclaadane ma walwalo, mana walbahaarayo, mana murugoonayo, because ilaahaygii ku abuuray hadduu ku jeclaado, walwalkii walbahaarkii murugta waa laga. hooyada iyo aabbaha kuma ogolo inaa walwashid ama walbahaarta ama murugood. wax kastoo ku dhibaya waa kaa ilaalinaya, sax? caruurta baariyada hooyadood iyo aabahood waa ka ilaaliyaan, waxay dhibsanayeen oo walwalkay ka ilaaliyaan, sax? ninka xaaskiisa wuu ka ilaalinaa waxay dhibsanaysa ama walwal u keenayo, sax? gabadha ninkeeda waa ka ilaalinaysaa wuxuu dhibsanayo, walwal uu dhibaayo waa ka ilaalinaysaa, sax? maxaaga ilaalinaya mataqaana? waa dad isjecel. waa jeceelkaa keenaya inuu waxaas kaa ilaaliyo. walilaahi almathalu alaclaa. qofkuu ilaahay jeclaadana ka waran, wal ma u imaanaya, walbahaar ma u imaanaya, murug ma u imaanaya? jawaabta waxaa maya, farxaduu ku noolaana. haddaba waa maxay waxaa lagaaga baahan yahay inaad samaysid siduu ilaahay kuu jeclaado? wax fudud waaye. xadiidkan saxiixin ku jiro dhegeyso. nebi maxamed ku salli sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi qaala allah. waa xadiid qudsi oo macnihiisa ilaahay wuxuu yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin addoonkayga iguma soo dhowaado bishayin wax aan jeclahay oo ahayn ama maftaradtu calayh, waxaan ku farad yeelay salaadii, soonkii, waxyaalaha waajibaadka ah. haddaa samaysid ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku jeclaana. wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah. allahu akbar. addoonkaygane wuxuu samaynaa nawaafil badan uu ilaahay ugu dhawaana, sunnooyin badan uu ilaahay ugu dhawaana ilaa ilaahay uu ka jeclaado. allahu akbar. hadduu ilaahay addoon jeclaadana muxuu samaynaa? xamaah u ilaalina, wax walbuu ka ilaalina. warafacahu koroo ugu qaada adduunyadii intuu joogo, sacaaduu siina. aakhara markuu tagane janna insha allah tacaala. haddaba nafteeda itiina waxaan u dardaarmaa waxyaalahu waajibka ilaahayna saari inaan ku dadaalno. hal ha ka tegin. salaada saytah u tuko, sunnooyinkana badso. soonka bisha ramadaan iyuu ku dhaafin. haisdhihin maanta waa dheerta ama shaqaan jiraay oo kale. haisdhihin shaqada waqtigan waa shaqeeya, salaad ma tukan kara. haisdhihin waxyaalaha waajibka uu ilaahay ku saaray sameeyo, ku dadaal. intaas keliya hataa ku ekaanin, sunnooyinkana badi. haddaa saa samaysid ilaaha ku jeclaanayo. hadduu ilaahay ku jeclaano wuu ku ilaalina. adduunyada wax kastoo haddii lacag kasta aa samaysid, hadduu ilaahay ku ilaali waayo ka waran maxaa kugu dhacaya? walwal iyo walbahaar iyo murug iyo jiro iyo wax kastaa kugu dhacayso. idan siduu ilaahay ku ilaaliyo, daacada badi, waxyaalaha waajibka sameey, sunnooyinkana badi insha allah tacaala. ugu dambeyntii allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dembigeena inuu dhaafo, walwalka iyo walbahaarta iyo murugtan inuu naga ilaaliyo. aamiin dhaha. sacaada, farxad adduun inuuna siiyo, wax kastoo farxad noo keenaysana inuuna siiyo. aamiin dhaha. aakharane ahlu janno inuu ilaah naga dhigo. sacaadada runtii taas waaye. farxadda runta taas waaye. faman zuxzixa cani innaari wa udkhila aljanna faqad faas. liibaanta, dhabta, guusha, runta, farxadda runta waa taas. ilahi subxaana wataala taas nagama qadiyo. aamiin dhaha. jazaakum allahu khayra, baaraka allah fiikum. walaalihina kale usii gudbiya, idinkana ku camal fala. salaamu calaykum.